السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan saaxiibada aynu jecelnahay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada channelkeena qisooyinka toddobaadkan waxaan idin hayaa mid ka mid ah qisooyinka cajaa'ibka ee dunida ka dhacay oo aanu isleenahay dadkanagu way kuwaana qaadanayaan oo waxbay ka baranayaan sida caadada ah qisooyinka aynu soo qaadano waxaynu ka soo ururinaa oo aanu ka soo xulanaa buugga weyn qisooyinka uu qoray qoraaga la yiraahdo Abu Talaal Al-Hamarani oo ah suxufi reer Kuweyda oo qisooyinka aad u aruriya haddaba qisadeena toddobaadkan waxay ku saabsan tahay qisatu shaab as-Suudani fil baaxa lilada macnaha qisada waxay ku dhacday nin Suudaani ah wuxuuna ku noolaa magaalo la yiraahdo Baaxa oo ka tirsan boqortooyada Saudi Arabia oo fiirsada waqtiga ay dhacayso waxa la yiri waa dabayaaqadii 70-meeyadii ilaa 80-meeyadii waa waqtigii ugu fiicnaa Sacuudiga 80kii ilaa wixii ka dambeeyay qofkii taga lacag fara badan ayuu heli jiray shaqaale fara badan oo lacag fara badan ayaa laga sameyn jiray waa waqtiyadii shidaalka iyo kambaniyada iyo dhismaha iyo ka bilaabanayo 70kii ilaa 90kii dadkii joogay lacag fara badan sameeyeen marka ninkan wuxuu ka yimid Suudaan wuxuu soo galay dabayaaqadii 70-meeyadii uu soo galay Sacuudiga shaqo fiican oo helay magaalada la yiraahdo Baaxa ayuu shaqo fiican ka helay ninkan wuxuu ahaa nin dhismaha yaqaana faryaamo ah alwaaxda iyo sariiraha iyo waxa kan sameeya warshadana loo dhiibay ninkii marka muddo uu shaqaystay wuxuu sameeyay lacag waali ah oo helay dhowr meel ka shaqeynay waana waqti shaqo fara badan laga heli jiray Sacuudiga waxaa dhacay marka ninkan markuu 10 sano shaqeeyay wuxuu isdhaayay inta ka badan waxba naftaada ha dhibin iska laabo Suudaan tag iska guurso meeshaas nolol iyo wax kala ka samayso wixii halkan ka heli karto waa ka hesha maanta nin ladana tahay lacag fiican haysataa lacagtaada bangiga iska dhigo tartiib waxaaga maalat iska basarso inta badan lacagaha la kala xawilayo iyo waxa kan iyo way adkay waxa la sameyn jiray marka alaabo muhiim ah la geli jiray electronic ha u badnaadeen makiinadahan iyo waxyaabahan iyo maaratay dahab iyo waxyaabahaas inta badan lacagii u haysto galiyay marka jidda waxa ay leedahay dekada leedahay miinaa jidda la yiraahdaa waxay ku taalaa badda cas marka Suudaan iyo Jiddana way isku dhow yihiin iyaduna badda cas dekadeedu saarantay Suudaan kuwana badda cas dhankan ka saaran yihiin marka wax badan looma socdo marka maraakiib yar yar oo alaabooyinka iyo waxa kan iyo lagu qaadaa baxa marka dadku way iska raacaan u baahnid qarash fara badan diyaarad iyo waxaas inaa ku baxdo sababtoo ah ninkan meeshuu ka galaaba wadankiisii baddaas yartaa u dhaxaysa ninkii marka wuxuu la hadlay qoladii doonta iyo horta alaabtiisu isku dawday shaqooyinkii soo fasaxay wixii alaabo muhiim ah u haystay wixii kale dhaqaale u haystay alaab kale oo galiyay wixii kale ninkan marka waxa leeyahay waxa samaysaa darbaalo waaweyn alaabta ku xir marka alaabta darbaalada ku xirtid macnaha baakado geli qaarka wixii jabaayana geli kuwa kalena saas u samee marka kadib adiga iyo alaabtii wada socda dekada imaada waqtigaas marka timaadid alaabtana waa lagu saaraa adigana waxa ku raacaysaa lacag la'aan hawshaas marka nimanka Suudaaniyiinta oo markabka iska leh ayuu la heshiiyay ninkan wadada uu soo xaray ninkan marka wuxuu bilaabay inuu wixii aruriyo wax allaalay wixii hanti uu haystay alaabooyin u geliyay
si hadhow xagga markuu tago xataa uu uga sii faa'iido. alaabta ugu badan oo geliya waxaa ka mid ah matoorada korontada dhaliya yaryar maaragtay kuwan kale wuxuu qaatay marwaxadaha feerada dharka lagu feereeyo waxyaabahaas oo dhan oo aruursaday ninkaan dhowr darbaalo aruuriyo wixii maalmo dhan oo ka shaqaynay wixii markuu diyaariyay isku dubariday markaa ninkan waa safar inuu baxo rabaa. marka waa inaa heshaa baabuur weyn oo alaabta kuu rara oo dekada iyo meelihii aad geynaysay kuu geeya si aad alaabtii u qaadatid. marka ninkan wuxuu markaa garanayay nin suudaani ah oo magaalada ku cusub wax yar jooga. wuxuu watay marka gaari weyn oo maaragtay alaabta iyo waxaas lagu qaado qolo sacuudiyana iskale uu shaqaynayay. ninkii uu raadiyay ninkii uu la hadlay wuxuu ku yiri nin waxaan rabaa maalin inaad Jidda i geysid dekada iyo meelahaas howlahaas maaragtay alaabtana ii rartid niyahow. marka way heshiiyeen العموم ويسكو وافقين لعقتي لغو قاضي لها ألابتي لغو رري لها وحي ودن بس وقتي بحيتان كالقاري ninkii wixiisii isku soo duubariday alaabtii loo soo raray gaarigii shirku soo galay asaga iyo ninkii Suudaaniga kaliya socda. marka ninkii Suudaaniga marka ninka uu iska weydiiyay ninkii barkuu iskaga sheekaynaya wuxuu leeyahay meesha wax badan anagu waagi waxaan nimid saasa lacag fara badan aan ka sameeyay kana sameeyay adigu waa idin cusub tahay meesha. marka aniga waa daalay hadda waxaan rabaa inaan wadankii ku laabto. ninka marka wuxuu yiri wixii lacaga aan haysto shaqeeyay dhan alaabta gadaal saaran iyo alaabahaas aan ku soo galay Suudaan markaan tago inaan gadaan rabaa. ninkii marka wixii hanti aan haysto dhan gaariga gadaal saaran tahay miya ها نيكي هنغوريا قالي كي غاريغا ودي waxaaba uu rabaa alaabtaas oo ku dhici lahaa iyo aqligiisa alaabtaas oo maskaxdiisa gashaday. marka lagu leeyahay sirtaada qof looma sheego ninkan alaabta waxa ku jira ma yaqaan haduu inta soo wada meeshiisa maxaa ninka dadka warka badan waa wareer badan ee leeyahay buugta. haddii aad war badan tahay ma toro qof kasta iskala hadlaysid marka dambe waxa ay oran hadaa sheegto maxay yaal dadku isku mid ma aha nin ilaahay ka baqayn waxa dad badan meeshaan nin iska daacado waa iska jira laakiin dadka badankood ma fiicna waa xaasidiin waxa sirka ninka uu shaqaysanay 10 sano inuu dhaco rabaa bal fiir iimaan darrada ninka haysata. ninkii marka sheekadii uu sameeyay marka wuxuu hadda marka waxaan sii maraynaa guri nin walaalkaya uu leeyahay oo Jidda ku yaala meesha ii joogsanaysa. meesha marka ii joogsatid waa u tagayaa waa soo macsalaamaynayaa ilmaha walaalkay aan la soo sheekaysanayaa muddo ma arkin kadibna waa sii soconaynaa oo dekadii meelaha saacadeena. marka intee degan yihiin uu yiri ilmaha waxay degan yihiin meel hebla ninka hebela la yiraahdaa nin la yaqaanaba waa in Suudaaniintu way shaqaanaa. ninka wuu aqooday gurigii markii loo tilmaamayna wuu fahmay bas khalaas oo dhan marka waa tagayna. ninkan marka loo sheegay gaariga inay waxay saaran ninkan 10 sano wuxuu shaqaystay ay yihiin ninkan gaariga wuu wadaa maahane wuxuu ka fakaraa war ninka se u gaadaa. mar wuxuu isleeyahay gaariga ma ka tuurtaa mar wuxuu isleeyahay sidee yeeshaa. ninkan marka gaariga wadana waa nin xoog badan ninkan kalena waa dadka iska lafta yar waaye. ninkan markuu iska sheekeynaya alxamdulillah iska barakaysanaa meeshan meel iska fiican ahayd waa shaqeynayay maadaama shaqo adag ka shaqeynayay dhismo ka shaqeynayay waa daalayo laakiin hadda lacagta aan haysto way ugu filantahay alxamdulillah. xagga markaa Suudaan tago waa iskaga shaqaysanaya nolol kale ku sameeyay dukaan weyn oo ku furan ka alaabtaas oo ku jira kana wuxuu ku jiraa ninkan waxa gaariga u saaran see uga qaadataa. ninkan marka 10 qorsha uu imaanay inta gaarigu wado sidee yeeshaa saan ma marka dambe qorshii ugu dambeeyay ay asaga iyo naftiisu isku waafaqeen
qorshaha marka muxuu yahay marka baaxa laga soo tago jidda loo socdo iskuma dhowa dhulka Sacuudiga waliba magaalada baaxa la leeyahay iyo jidda dhowr saacadood loo soo soconaa ma dhowa baabuurkuna waa baabuur weyn oo xamuula marka waa in la soo maraa meel la Taif طائفة مركا حوغا لغو نستا عنوين لغو عنا حوغا مارتي لسيحدا كدبا دانا لسو كورسيا نكان طائف كإنتان لقارين أيو حويرين قاريقا وحير aan wax ka dareemay marka طائف inaan gaari karna ma u maleynay motorka aad u kululaaday marka wuxuu rabaa xoogaa maartay inaan qaboojino marka maadaama dhulku uu iska nabadgeliye yahay Sacuudiga dawaa iska nabadgeliye waay waliba markaas baba ugu sii jirin maadaama dhulku iska nabadgeliye yahay akhiyo intaan طائف seexan lahayn gaariga inta aan ku nasiisano motorkeena markuu noo qaboobo subax intaan ka koorsanayna hadii kale hadaan ku sii wadno gaariga motorkii oo kulul waxa laga yaabaa dhibaato kale inay noo timaado adiguna safarka aad ka baaqato makaaniga loo baahdo la keeno dhibaatada marka xoogaa inta hadaan seexana ka war ana noo hayo marooyin iyo baalkii darbaal iyo waxyaabaha dhulka aan dhigano ana haya okay ninka dad waa iska daacad ninkan Suudaaniga maalin ku khiyaamaya ama ku dhibaateynaya kuma fikirayo ninkan waa Suudaani kale ninkan labadoodu waa qurbahan ay qariib ku yihiin wadankan iyaga ka shaqeystaan oo Sacuudiga iska joogaan ninkan okay ninkan darbaalki wuxuu ku aadiyay baabuurka hortiisa uu ku aadiyay baabuurka saas markuu u yaalo baabuurka hortiisa ayuu darbaalki ku goglay meeshay labadoodu seexdeen baabuurkii marka ku aadan ayaga ninkan marka waxbuu maagan yahay waa lugooyo wuxuu rabaa ninkan soo uga takhalusi lahaa ninkii marka asagu ma seexanayo qof seexdo iska dhigaa laakiin go'o isku daboolay dhanka gaarigana isaga soo xiga ninkan dhanka kale u xiga ninka xaggaan u jeestay ninkan xaggaan u jeestay ninkan de uu iska daalanaayo nin safar soo ahaa oo maartay habeen hore dhan aan si fiican u seexano alaab aruursi ku jirayo shalay iyo duraad iyo kulli wax soo gadasho ku jirayo iska daalanaayo haddana safar dheer soo galayo de markii saas dhulka uu dhigayba uu iska seexday ninkan markuu arkay ninkan inuu si fiican u hurday oo uu si fiican hurdada u gashaday ayuu inta istaagay si tartiiba ayuu gaarigii fuulay gaariga marka wax yar wuxuu ka bixiyay geerkii uu ka bixiyay وصو ترانحي مركتا غاريga marka waxru soo taraaraxaya asagoo la kicin gaariga ayuu wax yar soo taraaraxay markuu soo taraaraxay ninkii ku beegay ninkii meesha jiifa ayuu gaarigi madaxa ka miri la hawla wala quwwata illa billah warniku imtixaan bani aadamka iska ilaali qisooyinka qaar wax badan aan ka fahmayna aan ka baranayna ogaada ninkii khalaas waa ka takhalusay wuxuu sameeyay markuu hubsaday ninkii inuu dhintay meeshana waa iska cidlo ninkii macallin wixii uu ku jiifay wixii dhanto isla soo duuduubay uu gaariga soo saartay ayuu socday meel marka waadiyaal waxaa jira Sacuudiga waadi biyo maraan iyo waxyaabo badan meelo dhagaxaana iyo waxa jira meelihii inta geeyay uu ka tuuray meesha dhurwaaga iyo waxa meesha ku jira iska cunaan ka waa ka tagay ninkii markuu hubsaday inuu ka takhalusay oo wax raadana aanu jirin ayuu fakaray ninkan wuxuu shiriniyahow yaan daalac damba lagu soo raacay ninkan gaariga u cabaysan ayuu jidda la soo galay hantidii ninkii oo dhan saaranta
gaarigii markuu jidda la soo galay gurigii loo tilmaamay ninkan wuxuu rabaa raad isaga soo galaya dhan inuu meesha ka saaro imtixaan waa bani aadamka qaarkiis waxyaabo khatari ku fakarayaan ninkii marka gurigii uu lahaa waa marayaa caruurta aan adeerka u ahaya isugaysa tilmaantii oo soo qaatay dadku soo weydiiyay waa gurigaas aaliyay ninkan warqadu dukaan ka soo gatay baqshadu ku riday anigoo hebel ah adeerkiin ah aadaan maaragtay u daahsanahay waa idinka gaari waa inaan guriga idiin soo maro marka warqadan waxaan idinku sheegayaa waa sii gudbay oo dakadiyan sii aaday walaalkayna iga gaarsiiya fariintaas barakallahu fiikum marka waa waqti idin ma hayo waa cararaya wajada raadkii u baabi'inaya isku daya inuu baabi'iyo ilmihii markay yimaadeen gurigii warqadii oo meesha arkeen warqadii fiiriyeen adeerkeen waay laakiin adeerkeen waa ballansaneen warqad kaliya inta noo soo tuuro sidee ku dhici kartaa maxaa dhacay adeerkeen intuu u degdegsan yahaa dadkii marka waxaa la geliyey quful waxaa lagu xiray adeerkii waa tegay warqadanna isagaa qoray khalaas wayna ballansanaay ninkaan sheekadii inuu ogyahay ninkaan alaabtii jidda inta meel dhigtay u laabtay gaarigii iyo qolooyinkii shirkadii dhismaha u shaqaynayay wixii gaarigu iska geeyay shaqa ma rabayuu yidhi wuu soo laabtay jiddu ku soo laabtay alaabtii iyo wixii dhanow gadgatay ninkaan qaarna sidooda iyagoo oo rartay sidii ninkan waa raranaasoo ma lahayn ninkan wuxuu rartay doonu saartay asagiyaa ninkii bedelay wuxuu la aaday suudaan markuu la tegay alaabtii ninkii kaartadii u degsanayd uu ninkaan isticmaalay in yaroo uu jiddo ku gagaday uu wax ku samaystay maahan inta kale siduu alaab soo qaaday alaabtii wixii keensaday ninkaan wixii gadgatay gurigii gatay khartuum waa ku feesteeyay madcam weyn oo furtay wixiisu habaystay dadkii ehelka ahaa boliis ma dabageli karaanoo raad ma raaci karaanoo waxaa ka dhaadhacsan adeerkood warqadan u reebay wuu baxay haddii adeerkii la weyn lahaa waxbaa shakiyaa geli lahaa meesha u fiirsada kaartada la ciyaara niman caadiya ma ah marka walaalkiis ilmahan uu warqada u tuuray ninka meeluu ka shaqeeyaa gobola wuu yimid waxaa layidhi walaalkaa saasuu sameeyey aabbo adeer saasuu sameeyey nama soo marin waa kaas inaa adi maqantahay wuu ogaa waa kaas waagaasna dee teleefonada gacanta iyo mobilka waxaa ma jirin warqaday tusuyin warqadiyaa loo dhiibay ninkaan marka walaalkiis ka yar waaye sanad ka yar waa isla soo koreen way isyaqaanaan ninkan sida uu wax u qoro yaqaanaa dee waagaas maaragtay gacanta in wax lagu qoraa badnayd sida wax lagu qoro dadkan suudaaniyiinta inta badan muthaqafiin waa dad waxbartay u badnaayeen ninkan sida wax u qori jiray ninkan fartaan meesha ku qoran ninkan waxoogaa shakiya gale haddana culays dhan ma arkin bas warqadii meel iska dhigay meel uu gashaday bas iska aamus ninkii marka haddana wuxuu isleeyahay ogow ama lagaa shakiyaa suudaan lagaaga daba imaadaa fariin kaluu soo diray uu leeyahay suudaanaan tegay wixii hanti ah oo aan ka shaqeeyey dee way la socdeen iyaga hantidiisii wixiis inuu qaadanay aan ka shaqeeyey qolo tuugaa intay heshay iga dhaceen anigiina waay afduubteen marka saas ula socda nimankii haddana walaalkiisii fariintiia loo keenay ninkii waa yaabay sidee ku dhici kartaa ninkii waa baxay marka nin xoogaa wax u bilaaban yihiin aqoon-yahan waa safaaradda suudaan ee u tegay meesha ku taalla jidda qunsuliyadda u tegay wuxuu dhahay arrintaasaa jirta in walaalkay suudaan lagu afduubtay marka fadlan qolooyinka suudaan jooga arrinkaa u sheeg amniga hay-adaha amniga qunsuliyadii iyo safaaradii waxay waceen qolooyinka amniga ninkaas sacuudiga ka tegay oo suudaaniga magaciisa saas la yiraahdo ayaa muxuu tegay maaragtay meesha hantidiyaa laga dhacay waa la afduubtay awal mara marka ninka booliiska ah ninkan wadankaasu ka yimid gudaha wadankiina wax lagu yeelay markii la yiraahdo
كو waxay hubinayaan immigration ka meelaha wadanka laga soo galo dhan ninka noocaas ma soo galay horta intaan anaga madaxana loo saarinin Sacuudiga gudihiisa inuu ku dhintaa laga yaabaa anaga horta ma soo galay كل المطارات والموانئ وحدودها كل أربورها دكذها ولا بار قويس قال الله يا بوليس كحيل إن مجلس هبل اللي يرى وضن كم بسوق لمب محل عفتو برانك انتو كسوق على وضن واضح مركا ninka marka fariintii uu soo diray iyo warqadii uu u soo diray walaalkiis haddana markii la furay oo afduubka iyo waxaan kaga hadlayo iyo warqadii kale waxa waaye isku far waaye isku qof qoray laakiin walaalkiis sidoo wax u qori jiray uma qorin ninka marka waa shakisan yahay Sacuudiga jooga haddana booliiskii waxay leedahay ninkii maba soo bixinba ninkii gudaha wuxuu joogaa Sacuudiga waa meeshuu joogay ninkan maba soo galin Suudaan hay-adihii ammaanka Suudaan waxay la soo xiriireen safaaradii Suudaan waxay ku yiraahdeen ninka hebel la yiraahdo ma imaanin wadanka markii ugu dambeysay Sacuudiga joogay ninkaas safaaradda Suudaan waxay la xiriirtay hay-adaha ammaanka Sacuudiga sheekadii u sheegtay hay-adaha ammaanku waxay bilaabeen inay baaritaan ku sameeyaan ninkan sidii lagu heli lahaa magaalada uu joogay baaxa la yiraahdo ayay tageen ninkan meeshii uu ku noolaa wixii oo dhan ay wareysteen kuwa Suudaaniyiina meesha joogay la hadleen waxay ninka noocaas ma taqaanin ninkan meesha 10 sano ka shaqeynayay kadibna waa guuray Suudaan aada u yiri waa kaas markii ugu dambeysay maxay goormeedii ku dambeysay nina qaaday gaari ku qaaday ninka muxuu ahaa Suudaani magaciis hebel xaguu degay meel heblaay okay way soo baxeen booliiskii Sacuudiga ninkii Suudaaniga ahay raadiyeen ma joogaaheen waa nin Suudaan tagay waay meeshii tagay raadkii ninkii mar hore ninkan ugu dambeysay mar hore waxa gu aad ma naqaan Suudaan aad si kasta u raadiyeen ninkii waa waayeen hay-adihii ammaanka marka dowladnimadu soo u fiican tahay hay-adihii ammaanka Suudaan ayaa lagu wargeliyay waa loo sheegay waxa la yiri ninka noocaas ayaa ninka ugu dambeeyay ninka la raadiyo ninkii soo u raadinayay gurigiisa ogaaday ninkii nab waa la qabtay ninkii markii la qabtay baaritaankii lagu sameeyay wixii oo dhan markii dambe ninkan warqadihii uu qoray walaalkiis wuxuu yiri waa baxay walaalkiis isaguna Suudaan uu tagay ninkii waa la qabtay markii la yiri warqadihii uu geeyay wuxuu warqadaan walaalkii ma qorin gurigiisa ninkan booliisku baaritaan ku sameeyeen warqadihii uu qoray iyo wixii oo dhan la isku fiiriyay warqadahaas ayaa ninkan waxay u noqdeen meeshii lagu qaban lahaa kadibna waa qirtay marka wuxuu أنا سمي سمي نكا أنا كتخلص لا حول ولا قوة ما هو التخلص أنا هنتظر كقاعد بسم الله مساسها نكي مركون قرتي dadkii marka ehladii iyo ninkii qaraabadii saawixilaan diyan bixinaynayo ninkii maartay maadaama ninka uu diray hantidiina bal wixii marka macquul waa celinayna reerkii marka waa diideen ninka laga dilay waxay leedahay ninka naloo qisaaso sidii ninkii lagu qisaasay oo maartay sharciga lagu mariyay saasay marka qisada ku dhamaatay marka waxyaabaha la yaab kale inuu ka baranayno waxa kamid ah qorshahaaga iyo sirtaada iyo waxa aad maagan tahay qof kasta haysaga sheegin waliba qof haysaga sheegina ku dheeraan walaalka walaasha wixii ayaga idinka dhaxay ka hadla laakiin waxa adiga gaarka kuwa ay noloshaada waxyaabo khatar badan ay qofka kaga imaan karta inkastoo dad wanaagsan ay jiraan oo fiican ay jiraan oo waliba marka wax u sheegto talooyin fiican ku siinaya walaal saaxiib way jiraan laakiin dad xun ku jira sida hadoo kale ninkan waskaga sheekaysanay ma ka shakinin mar daqiiqad kama shakin in Suudaani oo maskiin oo walaalka wadanka aad uga soo horeysay wadankan iyo sida lacagta lagu sameeyo uga sheekayo islaha sidoo ninkan wax u sameystay asagoo ha ku dhiirado ha sameysto waa kaas
adduun xaalkiisa la yiraahdaa marka qisooyinka Abu Dalaal aad iyo aad ayaan maaragtay u xiiseeyaa aniga adikuna waan idin soo bandhigaa kullay maaragtay waxyaabo badan baynu ka ogaanaa oo ka baranaa marka adikuna waa mahadsantiin sida caadada ah soo qora fadlan commentiska fariinta wixii aad qisadan aad ka ogaatay ka baratay oo aad maaragtay kaaga soo baxay intaba noo soo qor like gareeya oo share gareeya qisada haddaad ku cusubtahay channelkeena qisooyinka nadaara 2 toddobaadkan qisadii waa naga intaa ee subscribe-ka ka iloobin Facebook haddaan nagala socotana fadlan follow gareey inta aan mar kale kulmayno iyo qiso kale asxaabay meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo